sida mawduucu yahay waa 4.5 hadda wax badan baan ka hadalnay oo qayladhaantu waagaan kabiir ku ahaa ilaahay haddana waan wadaa 4.5 dee lagama hadli karo dhibaatada uu leeyahay waa waxaad ka garanaysaa 4.5 waxaa laga xishoonayaa in la yidhaahdo 4 eber ama 4 nus midna ayaa laga xishoonaya marka afgiriiska lala aadaa oo Soomaalida waad aragto waxay ka xishoonayaan afgiriiska la aadaa waad aragto 4 eber midna waxa qof bara ma jiro marka sida daraadeed waxaan leenahay waxa hadda la joogaa xilligii laga gudbi lahaa mashruucan 4.5 ama 4 eber oo runtii aan isleeyahay dhibka Soomaaliya qayb weyn inuu ka yahay micnaha aaminsanahay intii aan horey u oran jirnay baan micnaha ku celcelinayaa oo suugaan baanu ka tirnay ummadan ku wacyigelinayno oo aan kaga hadlayno 4.5 Soomaalidu waa tixiye traabay dhinaca wax isku fahamsiiyaan marka taxaan baan kugu sheegayaa waa baaq dadweyne waa badbaadada 4.5 bulshada hayelina waa boog qabiil huwan oo baha iyo biifbaaf la mariyo laynagu baadilayaa 4.5 bulshada hayelina tiitiin la beeriyo baxdin weeye nabaro aan abad bogsoonayn 4.5 bulshada hayelina kuwa boob ku naaxaasad bursiga siyaasadeed ugu walbanaystay 4.5 bulshada hayelina boqolowga diyada iyo bilic waa ka siman yahay ninna isagoo bara boqorkeen ma uumine 4.5 bulshada hayelina marka waxaan filayaa in inta laga fahmi karo diiniyan iyo dhaqan ahaan iyo suugan ahaanba laga dareemayo marka waxaan rajaynayaa doorashadan 2020 oo la leeyahay qof iyo codkii in laga gudbo qof iyo kartidii la isku soo doortaan aaminsanahay dhibaatada aan runtii ku arko aniga waxa weeye 4.5ka waxa weeye dad siyaasiyiin meel iskugu imaanaysaan marka arrimo ayaad isla gelaysaan oo u baahan aqoon haddii noqon caafimaad haddii noqon beeraha haddii qofku u baahan yahay kaliya inaad qabiilka aad ka soo jeedo meeshaad ku fadhi marka taa waxa lumaysa horumarkii dalkan la gaarsiin lahaa iyo minaha 4.5 ka hortaagan sida darteed waxaan ku wacyigelinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan siyaasiyiintu in loo howlgalo sidii cudurkan kansarka ah oo kansar baan leeyahay 4.5 oo qabiilka ku dhisan nin bar qof bilaadnimo ama gabar oo bar la leeyahay oo way gabar kale ka sii liidata runtii aad bay dhibaysaa mar kale waa idin mahadcelinayaa minaha Som News aad iyo aad baad u mahadsantiin wabillahi tawfiiq